kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni diblomaasiyadeed ee aan uga hadlaynay arrimaha bariga dhexe iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay. waxaa si toos ah nagala socotaan bloggeena YouTube iyo Facebook aan ku leenahay Wadaagsin Production. si aad u heshid xogtaasi mar walba fadlan daawada subscribe saaro gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan xog walba oo aan halkan soo galino. Kumaadsaniid qaramada midoobay iyo quwadaha adduunka ayaa bayaano ka soo saaray weerarada khatarta ah iyo xiisadaha u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka. sidoo kalena golaha sanadka aqalka sare ayaa dhaleeceeyay caddeyn la'aanta uu Mareykanku ku dilay General Qasem Soleimani, waxaana soo muuqatay bayaano muujinaya in Mareykanka iyo Donald Trump ay dib ka miirsadeen. Mareykanka iyo Iran ayaa dib ugu soo noqdeen qulqulatadii suurtagalka ahayd ee Arbacadii, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu dhaleeceeyay inuusan u argudi doonin militariga weerarada gantaalaha Iran ay ka geysanayaan saldhigyada ciidamada Mareykanka. ma jiro qof wax ku noqday duqeynta, laakiin ciidamada Mareykanka ee gobolka ayaa heegan sare ku jiray. isagoo ka hadlayay aqalka cad, Trump wuxuu u muuqday inuu damacsanaa dib u dejinta xiisadda, taasoo kor u sii kacday kadib markii uu qirtay dilkii bartilmaameedka ah ee isbuuc hore lagu dilay General Soleimani. Iran ayaa jawaab ka bixisay habeennimadii Khamiista weerarkeedii tooska ahaa ee Mareykanka tan iyo 1979 safaaradda Mareykanka. waxay gantaal ka badan 2 gantaal ku garaaceen xurno ku yaala Ciraaq. Pentagonka ayaa xaqiijiyay Arbacadii in ay rumaysan yihiin in Iran ay duqeysay iyadoo ujeedkeedu ahaa argudasho. Mareykanka ayaa wuxuu ballan qaaday inuu cunuqabateyn ku soo rogi doono Iran si loogu baahdo si aan u ilaalino ciidamada Mareykanka ee jooga bariga dhexe. Mareykanka ayaa sheegay UN-ku inay diyaar u tahay inay qaado tilaabo dheeri ah si loogu baahdo bariga dhexe si loo ilaaliyo shaqaalaha Mareykanka iyo danaha gobolka. warqada uu diray golaha amniga ee qaramada midoobay danjiraha Mareykanka Kelly Craft wuxuu ku sheegay in dilkii Soleimani ee ka dhacay Baghdad Jimcihii inuu yahay mid xaq ah. qodobka 51 ee axdiga qaramada midoobay sida ku cad qodobka 51 wadamada waxaa laga rabaa inay si degdeg ah u soo sheegaan 15 xubnood ee golaha ammaanka talaabo kasta oo lagu qaadayo isticmaalka awoodda istifaacidda. Mareykanku wuxuu isticmaalay qodobka 51 si uu ugu cadeeyo in talaabo laga qaado gudaha Suuriya ee ka dhanka ah dowladda Islaamka ee Ciraaq iyo ISIL oo sidoo kale loo yaqaan ISIS sanadkii 2014. wadanayaasha aqalka sare ee Mareykanka ayaa dhaleeceeyay caddeyn la'aanta si ay ugu cudur daaraan dilka Soleimani. Senator Utah Lee oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee madaxweynuhu ka tirsan yahay madaxweyne Trump ayaa su'aal ka keenay maamulku warbixin kooban oo ku saabsan dilkii General Iran Qasem Soleimani, isagoo tilmaamay kii ugu xumaa ee abad u soo xaadiro. shir jaraa'id oo ku qabtay Washington DC wuxuu wariyaas u sheegay in runtii ay ka xumaadeen in saraakiisha sirdoonka Trump ay diidaan inay bixiyaan macluumaad horseeday go'aanka madaxweynuhu uu ku amray in la dilo Soleimani. dhanka kalena waraysi uu siiyay telefishinka CNN, Senator Dimuqraadi Chris Murphy wuxuu yiri ma jiraan wax caddeyn ah oo ku saabsan hanjabaad dhow iyo mid gaar ah oo ka timi Soleimani si looga qaado talaabo military. taasina waxay si cadaalad ah oo cadaalad darro ah noogu argagixisay caddeyn la'aantan. taas la'aanteed madaxweynuhu awood uma lahan inuu qaado talaabo military isagoo aan marka hore imaan golaha Congress-ka. dhanka kalena madaxweynaha Turkiga iyo dowladda Turkiga ayaa wada hadallo iyo inay dejiso xiisadan u dhaxaysa labada quwadood oo labadaba ay saaxiib la yihiin. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay xiisada sii kordhaysa ee ka dhacaysa dariska Turkiga ee Iran iyo isbahaysiga waqooyiga NATO ee xiriirka la leh Mareykanka, isagoo intaasi ku daray in Ankara ay adeegsanayso dariiq kasta oo lagu heli karo nabad si looga fogaado xiisad cusub iyo khilaaf soo kala dhex gala labadan qolobadood. xilligan xasaasiga ah durbaanada dagaalka ayaa la ciyaaraya. waxaan isku dayaynaa inaan yareyno xiisadaha annagoo isticmaalayna dhammaan khadadka diblomaasiyadeed, ayuu yiri Erdogan. wuxuu ku bilaabay xasilooni inay ka dhacdo gobolka bariga dhexe. cidna xaq uma laha inay gobolka oo dhan gaar ahaan Ciraaq ku tuurto giraan cusub oo dab ah. Turkigu ma doonayo in gobolka uu noqdo marxalad dagaal, ayuu raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaana u safri doona dalka Ciraaq maalinta Khamiista si loo dejiyo xiisadda u dhaxaysa quwadaha Iran iyo Mareykanka. sidoo kalena xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dib u soo saaray baaq nabadeed isagoo ku nuuxnuuxsaday in dunidu aysan awoodin inay ku dagaalamaan gacanka Persian ama Khaliijka. afyeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa mar kale ku celiyay baaqa Guterres ee ku wajahan hogaamiyaasha adduunka in la joojiyo xiisadda iyo in dib loo bilaabo wada hadalka. howlgalka qaramada midoobay ee Ciraaq ayaa sheegay in weerarada Iran ay sii kordhinayaan xiisadda, waxayna ku baaqeen in la xakameeyo degdeg. weerarkii gantaalaha ee dhawaan lagu qaabilay Erbil iyo Ambar wuxuu kaliya sii kordhinayaa isu kormeedka. mar labaadna waxay ku xadgudbayaan madax banaanida Ciraaq labadan quwadood ee isku haya bariga dhexe.
howlgalka kaalmada qaramada midoobay ayaa lagu sheegay bayaan internet ah colaadda aan xasaasiga ahayn waxay leedahay saadaalin karo waxaan ku baaqaynaa xakameyn degdeg ah iyo in dib loo bilaabo wadahadalkii daawadayaal si aad u heshaan xogihii ugu dambeeyay ee diblomaasiyadeed ee ka taagan xiisadaha bariga dhexe iyo caalamka gaar ahaan Soomaaliya fadlan subscribe saaro oo nagu soo biir channelkeena Wadaagsin Production si aad u heshaan xog muhiim ah oo la isku halayn karo mahadsanidin